وقالية ومدى صومالية من سوما معانا حرية سوما معانا فالكبر رمين تاسالين الله ما يستروا أو حبين لكم إلهي موياني وإن العدك عبسانين إلهي موياني وإن كبر القبيل إلهي موياني عدك لك كبر رمى سنينكم قاعدنا كعمها يسقب صلاة تعالكم كعمها يسقب كعمها يسقب صلاة الآن سيدان سمين جري سمايو آد بان إلهي هذين يا مركورة آد بان وفرح سنة مانتا إن هول كي سيد محمد عبد الله حسن نحتاجنا هاي نرى الشيء مالكي وفرح التطليل ويجي مرة بتذكر هالشيء وانا أعتقد أيام كامل هاي لكن مانتا ما رجعني نفسي إن أنا هالكن تعبنا له مانتا ما في ليني ورجعني لكن ما في ليني مانتا إلهي هم هذيننا سيد الله يدين شيء ما قبل يوم ولا ركتانين أنا قبل كريم حبيبتي يقصوا بالله وتما كان بسبب صوتك أوهنتي يا فرحتي يا هذلكي يا سلامتي يا قيرتي يدعي يوم تعدكم منه نيجاتك مربع ست عدك يوسفت هذا إلهي يسوع عليه ما عليك قلب دلها على الديوان وعدك يوسفت هذا إلهي يسوع عليه مركل يدعي إنه لا يسوع عليه حبيبتي وكبقي أنا كنت إلهي ما كبر يا إنا نكتجين كما يضع ذين بدن بندقي ستين إذا كو قاركين أمانية إذا كو قاركين إلى الشوغة إذا كو قاركين أني أقولين أبوينا بدن سير الأركيسين أو إذا هرو مقال أو كي تنابع مانت إن سيئ أبدان العليل يا أبوينا داسنا وأباهين يغلق تركوضين هالان حرية دي كم تهين هالان أنا قوين بدن بنفرها كلي بنفرسكها دولة بايد إسنايد فرحة لأنه مانت كنا الله لحية labada ku iyo 6 baan anigu halkan imi dareen ahaan halkan baadin markaan tirinay gabayga caafimaad gobanimo wata deesh la culay markaan labada ku iyo 6 bishii Oktoobar bay ahayd waxaad u malaysaa gabayga maanta in la tiriyo sida daraadeed waxaad garanaysaan qalbigayga inay dawladda iiga dhisneed aniga inta markaan ka gudbo ummadii hay hadaynu rabno xorriyad hadaynu rabno wanaag hadaynu rabno qiyam iyo sharaf ilaahay baa inoo haya sababna inaga u ah عيد وحين نجاهين كرتا ما جرتو runtii cid waxay naga hayn kartaa inayna jirin waan soo xaqiiqsaday anigu hadda ka hor ma ogeyn inay wax badan oonan ogeyn baan maanta ogahay wax badan oonan ku baraarugsanay baan maanta ku baraarugsanay dhammaantiin waad ku baraarugsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed haddayna gacmaha isqabsanin oo ayna sharafteeda soo ceshanin cidna uma maqna ummadda Soomaalida ogaadeeya hadday rabto gobonimo nafiska ayara la helo haddaynu rabno inuu inoo sii turko waa inaynu ka gudubno waxyaalaha yaryar ee inuu toashku weyn ku hayno dhibaatadayna haysatay inaga dhibkeena yarna wax weyn baynu ka dhignaa dhibaatada weyn ee la rabo inaynu kor u qaadnaa wax yar baynu ka dhignaa haddayna inagu is ixtiraamin haddayna inagu gacmaha isqabsanin haddayna inagu sharafteena ilaalinin haddayna inagu walaala ahaanin cadawgeenu wuu inaga faa'iideysanaya mar walba cadawgeenu meesha inoo soo galo ummadda Soomaaliyeed qabiil kuma kala maqna laakiin hadda ka hor baan ka sheegay anigoo meel Australia kamida ka hadlaya waa la inagu xuquuqinaya qabiilka markaasaynu la suuxaynaa ma jirto qabyaalad dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jirto ma jirto waan soo xaqiiqsanay qurbahan ka nimid qurbaha dadka Soomaaliyeed qabyaalad kuma kala oodna laakiin dad dana yar leh oo danaha shisheeyaha u shaqeeya oo ama madaxa ama siyaasiyiin ama dadka caadiga ah ayaa faafiya qabyaalada laftirkeeda Soomaalidu way ka gudubtay markay caruurteedii tahriibtay ayay barteen inay isku qabiil yihiin markii laba wiil oo midna ka yimid Hargeysa midna Jigjiga ka tagay midna ka tagay Muqdisho midna ka tagay Djibouti lagu wada garaacay saxaraha ayay Soomaalida dhalinyarada ogaadeen inay hal qoys yihiin dadka Soomaaliyeed ee maanta nool 70% in ka badan waa dhalinyarada waxaynu u baahannahay in lagu wareejiyo waayo aragnimada dadka waaweyn ee hayaan dhalinyaradana waxaa looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka la gudboon dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba maanta dhalinyaro u soo hadhay dadka waaweyni waa cadceed galab gaadho tagaysa dadka waaweyn waxaan u soo jeedinayaa ee ama siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka ama culimada ah inay dhalinyarada garaadkooda kor u soo qaadaan oo la walaalayo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada Soomaaliyeed ana fursad ka faa'iideysanaya doorka culimada Soomaaliyeed wax weyn baa ya dibdhac ku yimid waxyaalo fara badan oo sababayna waan ogahay waxyaalo fara badan oo iyaga
ay leeyihiin go'daloolooyin iyaga ka muuqda ana way jiraan dadka Soomaaliyeed way kala go'an yihiin bulshada Soomaaliyeed way kala go'an tahay markaan eegno kuwa gudaha jooga iyo kuwa qurbaha jooga bulshadu waa bulsho kala go'an ninka culimada ihi markuu arka gabadha xijaaban ama wiilka surwaalka gaaban ama gar kale ay ku dhawaanayaan haddaad marka gabadha xijaabeed marka horeba iyagu dareentay inay akhlaaqdeedu ku labisatay haddaad adigina taa u waardiyeyso tii akhlaaqdeedu ka tagtay yaa u maqan wiilka surwaalka ka dhacaya qurbaha jooga yaa u maqan wiilka dhalinyarada wadanka jooga ee shaarka cunaya yaa u maqan culimada Soomaaliyeed waa inay baraarugaan oo ka soo gudbaan wacyigii hore maanta wixii uu isbedelay culimada Soomaaliyeed waa inay markashiyada lagu qayla carruurta ugu tagaan dhalinyarada koolada dhuuq waa inay u tagaan waa inay gabdhuhu meelaha aynu dareensanahay inay gabdhaha Soomaaliyeed ka nugul yihiin iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa in laga gacan qabto Soomaalidu waxay tiraahdaa ruux qada haysta ayaa quraac loogu daraa qof ama akhlaaqiyan ama dhaqaale ahaan ama nolol ahaan ama tarbiya ahaan dhisan maxaad sheekhow ka waardiyay isagaaba dhisan qofka dayacan baa kaaga baahan dayac jirto qof kasta oo Soomaaliya oo maanta codkayga maqli kara ama meeshan fadhiya waxaan ka codsanayaa dhalinyaradeena inaynu badbaadino kuwa shaqo la'aanta haysta inaynu dhiiri gelino dhulkeena masnada iyo nicmada ku jirta inaynu la soo baxno inaynu adkayno midnimo marka la helo ayaa wax kale oo dhan la helayaa furaha ummad kasta oo adduunka ku nool iyo guusheedu waa inay midowdo sababtoo ah haddaan qaybsanahay labadeenu labadan isagtaaga haddaan hadda aragtaha qaybsanahay oo aan waxba ku midaysnayn taalidaas oo aan sawir isdaawanaynahay kama gudbayna halkaas si aynu u midho dhalino halgankii dheeraa ee ogaadeen loo soo galay iyo dhiigii loo daadiyay halgankeeni ma dhamaanin dabcan madaxdeedii baa joogta oo ka hadli doonta laakiin aniga ra'yigayga waxay la tahay halgankeeni ma dhamaanin laakiin qayb kamid ah qaybihii uu awalba mabdi'iyan ku salaysnaa ayaynu qaadanay si aynu taa u xaqiijino tanaana ka khatar badan tanaana ka culays badan tana u baahan energy tana u baahan midnimo tana u baahan in maskax cusub lagu shubo meesha aynu ku dhiib baxayno waa inaynu ku maskax baxno waa inaynu ku maal baxno waa inaynu ku caqli baxno waa inaynu inagoo gacmaha isqabsano gaadhna meeshaynu u soconay ma aynaan joojin halgankeeni laakiin meeshaynu u soconay inagoo nabadda inagoo dhiib baxaynin oo wiilasheenu isku dhimaneen ayaynu gaadhaynaa insha Allah waynuna guulaysanaynaa codkaygu muu gaaban yahay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii maanta shacabkeennii la dhibaateeyey ee xabsiyada ka soo baxay ee ku soo curyaamay agoontii naftadurayaashii madaxdii mas-uuliyiintii maamulkii dalkeenna loo magacaabay ee gumaysibaha inoo keenay ina matalayay inaynu mid nahay aad baan ugu faraxsanahay runtii waa arrin guul ah waa arrin taariikhi ah waa arrin cadowgeenna dhabarjab waa cid kastoo halganka ogaadaya cadow ah maanta ma faraxsana sidaa daraaddeed waa inaynu fursad inaga helin fursadda keliya laynaga heli karaa waa inaynu qaybsanno waa inaynu geed hoostii isku qabsanno waxaan aad iyo aad uga xumahay markii isbeddelka yimid ee naqaska daaqad yar laynoo furay inagoo meel mugdi ah ku jirna markii daaqad yar ilaahay inoo furay ummaddeenu inay islayso oo geedkan waabaan degi jiray la yidhaahdo oo dad inagaga dhinto oo dad inagaga dhaawacmo aad baan uga xumahay runtii waa arrin aan la qaadan karin waa inaynu ka gudubno dhulka inaga badan Soomaalida geeska Afrika degan dhulka ay ku nooshahay uu ka badan yahay haddaynu miyir qabno uu inaga badan yahay dhulkeenu maarka ku jiraan uu inaga badan yahay uma baahnin inaynu si doqonnimo u fikirno uma baahnin dhul inaga badan inaynu isku leyno isagoo cadowgeenu weli ina haysto inala taagan yahay oo uuna inaga tegin hadalka dheerayn maayo fursadda la isiyaa baan uga mahadcelinayaa waa idinka raaligelinayaa haddaad jeclaydaan inaan gabyo haddaad sii jeceshihiin gabaygii hammi durugsan ee marxaladda ku habboon isagoo duuban buu inoo yaallaa qolada farsamada hadday inoo soo daynayaan isaga laftirkiisa xabaab baan ku duuba beryahan oo dhan waxbaa iska jiray kaliil baan ku jirnaay marka aad iyo aad baan idin salaamaya dulqaadkiyo ismaqalkii ku dara daryeelkiyo xanaanada ku dara doodkii fagaaraha ku dara daweyntii khilaafyada ku dara midnima doonisteedii ku dara midnima doonisteedii ku dara midnima doonisteedii ku dara midnima doonisteedii ku dara dulqaadkiyo ismaqalkii ku dara
iyo xanaanada ku dara doodkii fagaaraha ku dara daweyntii khilaafyada ku dara midnimo doonisteedii ku dara